Japan waa la burburiyay haddana warshado ayay noqotay. Jarmal waa la jibiyay haddana Yurub ayuu hogaamiyaa. Turkiga waa la cunqabateeyay haddana hubkeeda iyadaa samaysata. Iiraan waa la go'doomiyay haddana quud iyo cudud iyadaa leh. laakiin Soomaaliya 15 sano maxay sameyn weysay? su'aashaas culus waxaa si toos ah u weydiiyay Sheekh Maxamed Idriis. dhambaal cusub oo galgalay baraha bulshada ayuu soo dhigay Sheekh Maxamed Idriis. dhambaal uusan ku weerarin qof kaliya balse uu ku qabanaya nidaam dhan madax Soomaaliyeed oo kursi fadhiya laakiin aan qaran dhisin, aan dad dhisin, aan warshad dhisin, aan cudud samayn. Sheekhu wuxuu ku bilaabay eray culus. ummad aan warshad lahayn oo waxeeda samaysan waa ummad aan jirin. taasi waa xaqiiqda ugu qaraar ee qaran kasta lagu cabiro daawade. qaran jiritaankiisa laguma qiimeeyo calan iyo hees qaran, laguma qiimeeyo shirar iyo sawiro. waxaa lagu qiimeeyaa waxa uu soo saaro, waxa uu cuno, waxa uu xirto, waxa uu isku difaaco. haddii intaas oo dhan dibadda laga keeno daawade, qaranka magac keliya ayuu ahaanayaa. Sheekhana sidaas buu ula jeedaa hadalkiisa. Japan waa la jibiyay. 2 bam oo nuclear ah ayaa lagu dhuftay magaalooyinkeedii waa burbureen. laakiin hal go'aan ayay qaadatay: sancad, warshad, wax soo saar, cilmiga farsamada. kuwii jabiyeyna ku jabisay. maanta Japan waa quwad. Jarmalkuna sidoo kale 1945 ciidamo ayaa la duldhigay. dalka waa la jabiyey laakiin madaxdiisii waxay fahmeen in qaran lagu soo celsho warshad iyo dhaqaale. maanta hal gobol oo Jarmal ah ayaa ka dhaqaale badan dalal badan oo waa ka maanta qaxooti qaabilaysa. Mareykan ayaa Turki ku yiri hub dambe idiima siin doono. 1974 cunaqabateyn ayaa la saaray. taasi waxay madaxda Turkiga ku dhalisay hal fikir: haddii aad hubkaaga cid kale ka sugto, mar walba waxaad ahaanaysaa addoon sugaya. horaase loo yiri addoon siimbiro addoon weeye. sidaas darteed madaxda Turkiga waxay qaateen go'aan taariikhi ah. Turkiga waa inay iyadu isquudisaa, iyadu isdifaacda, iyadu qalabkeeda samaysataa. maanta 90% hubkeeda iyadaa samaysataa. Iiraan 1980kii dagaal culus bay gashay. hub ma haysan, daawo ma haysan, cunto ku filanna ma haysan. adduunkuna wuu go'doomiyey. laakiin madaxdeedu ma oranyaana siinaya. waxay yidhaahdeen annagaa samaysanayna. qamadi bay beerteen, daawo bay sameeyeen, hub bay farsameeyeen, dadkooduna xirfad bay siiyeen. maanta waxay gaareen isku filnaansho weyn. haddaba su'aasha ugu weyn waxay tahay: maxaa Soomaaliya u diiday 15 sano madax Soomaaliyeed? jiha ma bixin, qorshe ma keenin, warshad ma dhalin, dad ma dhisin, cudud qaran ma samayn. markay kursiga fariistaan iyada ayaa isku mashquula khilaaf aan dhammaan, musuq aan dhammaan, isqabqabsi aan dhammaan, qabiil aan dhammaan, safaro aan dhammaan, sabaxan siyaasadeed oo aan dhammaan. kadibna reerahoodii bay u qaxaan. marka doorasho timaadana dib bay u soo qeeleen sida marqaankii oo kale, oo waxay dhahaan annagana doorta. fashilka ugu weyn ma ahan oo keliya in wax la qaban waayey. fashilka ugu weyn waa in aan xitaa la arkin kuwii wax dhisi lahaa. madaxdii Soomaaliyeed, hal abuurkii Soomaaliyeed, injineeradii Soomaaliyeed, ganacsadihii Soomaaliyeed, beeraleydii Soomaaliyeed cid midaysa ma helin. qaran aan maskaxdiisa ururin sidoo ku dhismaa daawade.
laakiin dhambaalka sheekhu kuma dhammaan quus wuxuu ku dhammaaday rajo wuxuu yidhi haddii soomaalidu hesho fursad 2026 ama 2027 oo cod yeelato waxaan rajaynayaa in aysan dib ugu noqon 15 sano fashilmay ee ay raadsan doonto maskax Soomaali oo cusub oo fiyow oo qaran dhista Japan way kacday Jarmal wuu kacay Turkiga way kacday Iiraan way kacday Soomaaliya ma kacaysaa daawade mise weli waxay dooran doontaa kuwii 15 sano fashilka joogay aragtidaada noogu reeb commentiga muuqaalkana la wadaag qof Soomaaliyeed oo hurdada laga toosinayo ilaahay baan idinku dhaariyay maxaa iska bedelay 2012 ilaa hadda dhalinyarada tihiine wali ma ka soo carartaan idinkoo yar wadankeeni ama bajaaj kaliya ma ku wadaan haday wasaarad shaqo ka soo baxdana garab iyo qabiil in lagu tago maahine aqoontaada iyo kartidaada kaliya inta tagto oo dhiibato shahaadada ma ku heli kartaa maya kuma heli kartid kadibna maxaad ku fikiraysaa aan baxo aan iska cararoon meel kale aado kadibna maxaad ku fikiraysaa badda aan galo oo Yurub iyo meel kale aan jaanis ka raadsado saxaaraha dhalinyaradina ku dhamaadeen baalkan ku dhamaadeen iyaguna hadda waxay leeyihiin kuwa yar oo dhalinyaro ah baan dhiigooda daadinaynaa min ajli annaga inaan kursiga joogno war ma idin qabataa ضد ضمير لما قبطه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير أنا وإذن دقيا والله بالله إن أنا أقول يقارة يقبيل قارة يقول قارة أنا أهتيرني إن كان ينحيا أنا نحيا